بسم الله الرحمن الرحيم جمعة وناكسن ما أنت مال أقوى بدك كبلاو أيام بالله هذا آدي أتربيين لكن وحيابا أكو دول مريضون وحكم إذا إيران أو ما أنت لو في سنة يسو شدال كتير بدن شدال كي حرة دقالك أنتو سبلاون كور ما أنت با كبدن تهاي شدال كي دوفيسو أيضا لو في سنة يسو أيضا إسكاليدا إيران سيدا يكون عاد عربتي كالوطن أنت كسو حرتي ودوين كي البابدي كسو حرتي goobahoodii shidaalka ee duqeysay maraakiibtoodii ee duqeysay dekadahoodii ee duqeysay eelabo waa Iiraan qaliijkii dhan intay dudumisay oo hal doon xitaa oo hal barmiil fuusto shidaal uu saariyay ay ka soo bixi karin carabtii Iiraan maanta waxay dhoofin sida u jeedaan anigu isku dhooy waa hal qoray way qorataa saxaafada qorayso Iiraan waxay dhoofsanaysaa maanta shidaal ka tiro badan shidaalkii ka hor dagaalka oo carabta markaas ay u badneed ajiib saa ku dhacday waayahay waa dul mari doonaa si dadban Iiraan si dadban ayay uga guuleysatay NATO askari Faransiis dishay safaaradii Mareykanka la xiray safaaradii Yurub la xiray iyo Talyaani oo boorsooyinkiisii xirxirtay quful ku dhigsaday oo maantadan oo jimco ah qaxay Talyaani uu dib u laabtay intay joogeen ciidamadan Talyaaniga ee cararay intay joogeen waxay joogeen Erbil Iraq maxay u joogeen magaca NATO ku joogeen Iraq sida ogtihiin watii duulaanka loo qaaday Saddam Hussein la riday waxa dagaalameen waxay ahaayeen NATO ayaa meesha ku duulay Talyaaniga joogay ciidan Faransiis joogay ciidan xitaa Turki wixii oo dhan hadda boorsooyinkooda waxay xirtaan waxay taagiyihiin waxaan soo dhacay habeen walba droneska iyo gantaaladan looma dul qaadan karee waa baxnay anaga Talyaani saak waa yaacay Ingiriis asagana سفاردي سو حري وعراقي يدولك عربتا وحو دفاعي وقدم بي كحرتي قبرص وإنجليسك تاس وعجيبة معايا لي كل وان نيتو مقع نيتو كجوغين وعلى برصد سيكون عام يب وايه ان حالي وحسن ميسا إيران حالي حليق السحورتا لما قنطال او حي قدرتي ننكاس تركيا تركيا waxaa ku yaala saldhig Mareykanka uu leeyahay oo konton nuclear bombka nuclearka konton haba Mareykanka u yaalo gudaha Turkiga Iiraan marka xalay waxay sameysay xilliga suxurta waxay tiri suxur wanaagsan laba gantaal la diray NATO diyaaradii ay kicisay NATO da joogto Turkiga diyaaradii la kiciyay scrambling wax la ay sameeyeen labada gantaal la dagaalamay hawada Turkiga intii dagaalkaas ay gantaal soo rididii ay ku mashquulsanayeen NATO سمبوس بيجي أو حلوقي بي عربتي يعني سعرت قنتالو يدرونس اللوقي بي هذا عربت هير وحي قارين حدي لقوقو قبطو أديقو مقال درون أما قنتال إيران أي صوتورت أدو دوبيسيت مقال هدي لقوقو قبطو حبسي عطاي واسببت مقال انتو دبادن هذا آنا وأركن هذا ما انتو دواي دح جوكتو دا قده أو مقال أقادد أو مقال كاس برا بلشو أسو ديكتي طبعا سنة حبسي عطاي هيركاسي عربتك جارتي wax loo yaqaan embarrassment ama cib heesato awed taas waxa ku sii dheer Iiraan ayadoo NATO duqeynayso oo jugta ku hayso oo qixinayso haddana saako waxa soo shacbay sida ujeedaan saxaafada Faransiis iyo Talyaani oo fariin gaar ah oo qarsoodi ah u diray Iiraan waxay leeyihiin Iiraani waxa u baahnaa in naga caawisid sidii maraakiibteena shidaalka dhulkaas ku soo mari lahaa Hormuz adaa meesha laadarka ah adaa meesha atooraka ah adaa meesha atrishaka ah adaa meesha shactrol kulu adaa ka ah Iiraan caaw Mareykanka looma sheegin fariinta looma soo dirin Iiraan loo diray Iiraan fariintii soo bandhigtay waxay taagintaa wata Yurub itugos waxa loogu jawaabay marka qosolka dhigeysta waxa loogu jawaabay walaahi waa yab وراحوا إلى تلياني إيه فرنسيس إيه وضمت كله حتى إسكندنافيا كان نيذرلاند فنلند هادين سويدن هادين كواسون waxay message soo direen Iiraan oo ileeyihiin war sicir barar dhanka shidaalka ah ka bilowday Yurub Iiraanay wax ka rabnaa inaan naga caawiso ama inaan naga gado shidaalkan aashinaha ku qulqulinaysid habeen maalin ka soo baxayo Iiraan ee Hormuzka maraayo meeshan miinada ay ku dugtay Iiraan maraakiibteeda iyo maraakiib ayda ay uga shaabisa maraayo Yurub waxay taagan tahay نعاوي ولو جوا مرك وحاليري ضمان أسكرتينا مال ألالي ماشي كجوجان برجع دحى كعيا بحا
bax Qubrus sheegtee Israa'iil gudaheeda maxaa la dhihi jiray Sacuudiga meel alaale meesha joogtiin carar safaarideena xira saldhigeedeen xira markaas kadib aan wada hadlaynaa Yurub ma samayn doontaa dabcan waqtiga noo sheegi doon waaya qodobka kale Iran waxay dhoofsanaysaa shidaal ka tira badan shidaalkii hore dagaalka ka hor ee dhoofsan jirta maanta ka tira badan tahay war waa ka saxaafad qorays yaa bani maxay samaysay marka Iran waxay samaysay miina ku dugtay wadadii Hormuz badii Hormuz oo carabta u dhow iyada u dhow meeshii yareed u jeedaan adiga Hormuz ku arkaysaan meeshaas dhana miina ay ku duugatay waxay taagan tahay kiis shalay hadda maraakiib qarxis oo aragteen kii soo maro aniga aan raali ka ahayn haw kuweyga bas aan maray shidaalkeedii inta iska soo daldalato waa Iran ee maraakiib ka buuxsatay ay taagan tahay mara calan ah Iran ahayn xirta maraykanna korow ka daawanaa wuxuu taagan yahay markabkaas Iran male faraha laga qaaday Irantii waa dhudhuumasho qaab farsamaysan oo cajiib ah ee Hindiya iyo Shiine u badan ee saacadihii la soo dhaafay shidaalka gidaysa markaas dakhliga lacag soo galayso waa yaabaysa Abdul Shiday caadi noqday marka carabtii intay waxooda ka burburisay maraakiibtooda ka burburisay dekadooda burburisay meelaha shidaalka ay ku kaydsanayeen carabtii intay ka dukum ka dhigtay ayada sigaari iska shidatano Iran ma Ramadaan waay sigaari ma shitaan laakiin habeenkii shitaan sheekada maraykan waa yabiya warbax wax ka qabanaa ileen maraykan markab kasta oo meesha mar ma duqeyn kara mugta calan kale loo bedeshay bas dhac maraykan wuxuu isleeyahay Indonesia waay Malaysia waay hamaraan markaasa Iran fursada meesha ka dhax aragtay carabtii waxay inta dudumisay ayada waxayda kor u qaadatay yaabkan aniga waa arkay walaalayaal biila aragteen waaya wallahi waa cajiib dagaalkan waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo maanta waa Quds Day Iran gudaheeda Quds Day loo yaqaan sida u jeedaan madaxda soo baxday ninka odayga ah Pezeshkian waa kaasa madaxweynaha dhan ee wadada iska dhaxmaray war waa kan ninka odayga wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araji asagana waa kaasa meesha iska dhax lugeynay maanta war odayga dhamaatay bacde odayga maxkamadda haystay judicialka asna waa kaasa maalinka Quds Day hadaan aqoonin jimcaha ugu dambeeya Ramadaanka ay dabaaldegaan reer Iran waxay u dabaaldegaan sidii loo xoreyn lahaa dhulka Quds Jerusalem maanta loo yaqaan dabcan dhulka muslimiinta ee barakeysan sidii loo xoreyn lahaa carabta kale iyagoo dabaaldegaan markiis waayay marka waaba soo madaxdii waaba soo baxay duqeynta dhinaca ka socota jugta dhinaca ka socota madaxdiina wadada iska dhaxmareysa iyaga iyo shacabkoodii intaas soo korortay sheekada waxay isbadata isbuuci labaad iyo dagaalka oo dalaq lahayd